31 bishii August ama bishii sideedaad ayaa waxaan ka baxay degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo oo hadda 40 kilomitir ii jirto. waxaan aaday Muqdisho waxaana u socday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Mas'uuliyiinta dowladda shaki hadda ma aanan kala qabin oo aniga ma aanan islahayn wixii lagula dhaqmay hadda lagu sameeyey wax nin sugahayay ma aanan ahayn oo filahayay barnaamijka saas inuu u dhacayo. waa ila xiriirahayeen oo way ogaayeen qayb ka mid ah sirdoonka hay'adda nabadgelyada qaranka iyo niman xildhibaano iyo wasiiro ah intaba. kadibna markii aan garoonka aadan cadda tegay waxaa barnaamijku isku bedeshay in lagu qabto meeshaas. markii laga qabtay garoonka aadan cadde dowladda ayaa gacanta kugu dhigtay wixii intaa ka dambeeyey marka maxaa dhacay? horta aniga sidii ninka sargaalka iyo jarnaalka iyo ciidamada iskuulka Soomaaliya ka mid ka ahaa oo bulshada Soomaaliyeed horey ugu cadeeyayba xabsi la ima geynin. xabsi waa xarun dowladeed ama station ku yaalo ama xabsi dhexoo dowlad ay leedahay ha ahaato. aniga waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ayaa adiga hadda ay wareysanaya intaba aan u xaqiijiyo aniga xabsi dowladeed ama aan la ileeyin. markii la qabtay garoonka laga qabtay waxa ay qabtay niman booliis ah oo askar ah iyo niman dharcad oo isla socdo oo ninka dharcadka uu amrahaya ciidanka. laakiin aan fahmi karay ciidanka dowladda inay yihiin cid kaloo hadda meesha soo geli karana aysan jirin. kadib waxaa la geeyey xaafad aada u fog oo dabcan si dambe aan gadaal ka fahmay inay degmada Hurwaay ee magaalada Muqdisho oo area dowladda ay kontarosho iyo area dowladda inta badan mas-uuliyiintiisa ay tagaanba aysan ahayn. waxaana lagu rajiyey niman dharcad ah qabo laakiin dib aan ka fahmay haddana inay boolis yihiin qaybta gobolka Banaadir ka tirsan oo Janaral Sadoon u xukumo. muddadii marka aniga 5 bilood oo la hayay maalinba waxaa la geynayay guri xaafad ka tirsan ilaa ugu dambeyntii ay keenay xaafad shubisku kamid ah. intii muddo oo 7 casha aan ku sugnaa inta kalena waxaa la igu hayay xaafadda Hurwaay gudiir kamid ah oo dad shacab Soomaaliyeed si bareefad ay u dhisteen. aniga iyo niman askar oo 12 nin ah baa meeshaas ayada inta badan way ahayd muddo meesha la igu hayay ma ahan xabsi dowladeed iyo xarun dowladeed midnana. qaabkii la dhaqmay haddii aan ku sheego xaqiiqan askartii haysay waxa xumaan ah oo ka baxsan awaamir la siiyo oo ay fulinayeen oo shakhsiyan ay ugu sameeyeen ma jirin. laakiin xumaan fara badan oo awaamir ah oo askarta ku socoto oo inay fuliyaan ay ku qasban yihiin baa jirtay. marka xabsi kuma aadan jirin laakiin dowladda ayaa gacanta kugu haysay oo magaalada Muqdisho ayaa dhinac ka degneed. hawla la xabsi aan lagu haynin in gacanta dowladda ku jiro oo dowladda ay hayso laakiin xaafadaha xamar ah marba guri la geynayo oo aan kalaan isweydiiyay waxay ahayd guriga la igeeyay baa la ugu hin karay laakiin ma aysan dhicin marbo muddo markaan guri ku xirnaado guri kale lagu wareejin jiray oo qof shacab oo Soomaaliyeed si bareefad u dhistay oo la sii tiriyay oo qalab la sii dhigay. nolol ahaan meesha aan ku xumaa oo hadda dowladda ugu haysayna ma ahayn meel oo dhib badan ma ahayn markii laga saaro xorriyadda. ma jirtaa marka intii aad gacanta dowladda ku jirtay inaad mar xanuunsatay? way jirtay hawlaha muddo loo jira xanuunsaday waana in dhakhtar la ii keeno ama la igeeyo. nimankaas inta badan awaamirta waxay ka qaadanayeen oo ayagu qofka ay su-aasha weydiinayaan Saadiq Joon buu ahaa. Saadiq Joonna cidda uu su-aasha weydiinaya Fahad Yaasiin iyo waxay ahaayeen madaxweynaha dalka xataa ra-iisul wasaaraha ma ahayn barnaamijka shuqulka walayn waxba kamuuse kalagu soconay wasiirka amniga midnana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xataa sistamka aan ku xiranahay kamuuse warramin. gabadha Fuusiya ah oo jarnaalka ah oo tadafeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ah oo weliba adiga gabar hawreerta ee anigana labada jeer ay hadashay xataa waxaan rabaa meel aan ku xirnahay iyo waxa aan ku suganahay midnana kamaysa warramin. barnaamijkii waxaa barnaamij kooban oo Saadiq Joon oo Janaral Saadiq Joon oo ah taliyaha ciidanka ee gobolka Banaadir oo ujeedku ay ahayd haynta oo asaga ahayo ciidamadu asaga xukumay hayaan nimankii aan siyaasadda saaxiibada ahayo siyaasadda ugu haystay oo madaxweynaha uu u sareeyay dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabadgelyada ee nidaamka kulane. intaas oo ahaa barnaamijkii dad ku kooban. dabcan su-aasha ay aan weydiiyo ragga aniga marka sida gacantii ugu hayeen ay la aadayeen Saadiq Joon raggaas uga aadayeen mana suurtagelin in jawaab sax ah la soo siiyo nimankii gacantii ugu hayay. raggii ku hayay marka ma kuu sheegana sababta lagu xiray iyo waxa dowladdu ay ka damacsan tahay? hawlaha markii aan muddo 19 casha xirnaaba iyo waxa ii yimid Janaral Saadiq Joon wuxuu ugu yiri wasiir waxaad ku xiran tahay ciidamo gaba jooga oo kun askari ah inaad wareejiso dowladda ku wareejisid baan loo baahan yahay saasay madaxda qaranka ku leeyihiin yaa ila baan ku yiri wuxuu yiri madaxda ku madaxweynaha iyo waxa ku taliyaha nabadgelyada ugu yiri waxa wanaagsan aniga maxaabiis baan ahay mana ahan ciidanku shaatigaas intaan gacanta ku taagay katabaan saarnaa waan ku yiri shaatigaas katabaan ka saaran warqad jeedkiisa ku jirta ma ahan waxa la igala hadlayo waa ciidan bilaadan ah. anigana hadda maxaabiis baan ahay. qofka aan telefoonka aan u dirayana su-aasha koowaad uu weydiinayo waxa waaye aniga waxaan ku suganahay. taas marka waxaa ka haboon su-aasha lagu soo dhiibo madaxweynaha uu ku soo dhiibay iyo taliyaha nabadgelyada anigoo xor ah oo degan xorriyadiisa u degan ama hotel ama xarun dowladeed u degan in la igala hadlo laakiin hadda maxaabiis baan ahaan ku yiri. marka sida aad sheegtay waxaa laga dalbaday in ciidanka ku sugan gobolka Gada aad dowladda federaalka ku wareejiso. ciidan
daraawiisha oo dowladda jubbaland ka tirsan oo gada jooga inaan ku wareejiyo waxaa leeyahay hadda maalinkii bishii tobnaad lixdeedii maxkamadda sida ummadda soomaaliyeed loo qanciyey laigeeyena waxay ahayd waxyaalihii laigu eediyey qayb ka ahayd laakiin taas waxaan ooga jawaabay in ciidankuna aan hoos imaanin ciidanka jubbaland inay taliyaal leeyihiin soomaaliyeed saraakiil iyo xukunta inay leeyihiin dabcan ciidankuna aan xukumin ciidan ka badan 7,000 askari oo dowladda jubbaland ay leedahay jubbada hoose iyo galaba jooga inay hoos imaadaan wasaarad ahaan adoo maxabiis ah oo aan xor ahayn haddii lagu weydiiyey ciidan wareeji si aad ooga jawaabi leed oo fahmaysaa waxaan ku qanci kara maba ahayn ciidan wareeji waxaan kaloo fahamsanaa barnaamijka ciidanku inta badan in uu hadal madadaalaha iska yahay wax ka duwan aan ku xirnahay oo 22 bishii 8aad barnaamijka ka dhacay magaalada Kismaayo doorashada ahaa barnaamij siyaasadeed oo ku salaysan inaan ku xiranahay baan dareemayay oo hadaladii maalinkii la qabtay la isticmaalaha waxaa kamid ahaa in iyadoo leela kaftamayo Soomaalida waxay tiraahdaa kaftan waaye dabur tagaa iyadoo leela kaftamayo rayidii la isticmaalo waxaa kamid ahaa in la iga daba keeni doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe intii aad marka gacanta dowladda ku jirtay ma dhacday inaad kulantaan ama aad la kulanto madaxda ugu sarreysa waddanka may walaal ma dhicin aniga intii aan gacanta dowladda ku jiray Sadoon iyo nin sargaal ah oo golagashan letter oo ku xigeen asaga oo ah oo la yiraahdo jeego baa la ii soo diraayo fariimo la igu soo dhiibahay fariimaha la igu soo dhiibahayna mid aniga anfacayo ka jawaabi kara ma ahayn cabdirashiid muddo markii aad xirnayd waxaa kuu suurta gashay inaad ka soo baxsato gacanta dowladda bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabkii aad u soo baxday iyo siday kugu suurta gashay aad waa mahadsantahay walaalle xaqiiqiyan barnaamijkaas waqti barnaamij hadda aan rabay inaan la wadaago way jirtaa inaan cidna isdiinin aniga system aan isku xirxiray oo rab ii fududeeyay aan kusoo baxsaday kadib markaan arkay taboodii aan helay systemka hadda loola dhaqmay gobolka kale dadka ku noolaa gaar ahaan degmooyinkii balaxaw dowlo iyo luuq ciidamada darawishka soomaaliyeed oo dowlad goboleedka oo joogay iyo shacabkoodii in maamulkii gobol heer degmo iyo heer gobol intaba iyo magaalada muqdisho iyo niman kaloo saraakiil ah in heshiis ah lala galay in ay dowladda jubbalandna ay ka tirsanayeenna ay ku gacan seeraan ciidamadina ay wareejiyaan cabdirashiidna loo soo daayo wax kastoo sameeyeenna looga baxay oo suurtageli weyday sababtoo ah waa midda aan lahaa ani horaan u fahamsanaa haddii sistamka ciidanka lagala hadlayo sistam ka duwan inuu jiro oo nimankaas saaxiibada ay haysto ujeedkooda ay tahay in ay qadiyad jubbaland oo ay ka aragti gaar ah ka qabeen ilaa ay xal u helaan inayna aniga isdeenaynin barnaamijka ii muuqanayay arrintaas markay dhacday kadib oo ii soo baxday in juhdi badan iyo dadaal badan oo aan gelinay gobolkaas ama gobolladaas xaqiiqiyan degmooyinkaas aan gelinay aan fahmay meesha la marinaya waxaan go'aansaday dowladdana arkay inay ka go'an tahay inaysan isii daynaynin ilaa ay systemka jubbaland waxay iyadu rabta ka samayso oo shacabka reer jubbaland rabitaankooda iyo waxay dabcan waxa ka duwan oo dowladdu ay rabtay ay ku shaqayso waxaan go'aansaday inaan sameeyo barnaamijka aniga xabsigan oogana soo baxay gurigii afduul laigu hayay baddana aan usoo maray 700 kilomitir aan badda gudaheeda usoo maray barnaamijkaas go-aanka marka aan qaatay ilaahay waan kala saartay oo rabbina waa ii fududeeyey tabaaraka watacaala waayahay markii aad soo baxsatay marka doontii yaa kuu soo kaxeeyey yaase kula socda adigu walaal doonta niman soomaaliyeed oo iskale baa ii waday cidna ima soo raacin keligay baan ahaa muddo 3 maalin iyo 2 habeen aan muqdisho joogay markii aan baxay kadib waxaa ahayn waxyaalihii igu cajka badnaa ma aanan islahayn hadda dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaheeda amniga way ku arkayaan ama waa lagu qaban doonaa ma aanan ka qabin ma cabsi ama qabin laakiin niman aan dirirnay oon fahmayo inay dadkuna saameyn badan ku leeyihiin bay cabsida ugu badneed iyo khatartii ugu badneed oo aan qabay labadibana rabbi baa iga badbaadiyey tabaaraka watacaala waxaana ii suurta gashay in xilli maalinimo ah soo raaco doon kadibna aan Kismaayo ku imaado intii aad xabsi guriga ahayd ayaad ka shaqaysay marka sidii aad meesha uga baxsan lahayd barnaamijkaas waan ka shaqeeyey waan u mahad celinayaa intii igala shaqaysay dabcan hadda qofku keligiis markuu shaqeynayo keligiis wax ma qaban karo in lala shaqeeyo dabcan dad unbaa ila shaqeeyey aan u mahad celinayo shaqadii ila qabteen waqti barnaamijkaas waqti daba dheer iyo wuxuu u baahan yahay aragti fara badan biidnillahi tacaala waxaana samayn doonaa xilli aan studiogan kusoo booqday inaan barnaamijkaas ummadda soomaaliyeed si maqal iyo muuqaalba ah aan warbixin ooga siiyo dhamaystiran laakiin barnaamijkaas wuu ii suurta galay ilaahay baana ii fududeeyey tabaaraka watacaala anigana dee waxaan ahaa qof aaminsan in la dulmiyey oo dulmi lagu haysto qofkana mar kasta oo la dulmiyo rabbi wuu leeyahay rabbina waa u gargaarayaa marka barnaamijkaas rabbi baa ii fududeeyey ilaahay baan ku mahadinayaa tabaaraka watacaala wayna ii suurta gashay inaan xabsigaas ka baxo ama afduubkaas igu haya gurigaas ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay dhisteen aan ka baxo kadibna 2 maalin iyo 3 maalin
iyo laba habeen aan ku sugnaado muqdisho. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan la wadaago dadka ay rabaan in ay amnigooda ilaaliyaan oo ay magaaladaas caasimada ah oo maalin kasta dhibaatada ka dhacaysa wax ka qabtaan. anigaan cabdirashiida oo siyaasi ah oo boqolka calaamadood leh oo la iraadinayay oo garoon iyo meel kasta oo gaadiid aan isticmaali karo uu ka baxayaba ciidamo la dhigay 9 saac oo galabnimo ninka barnaamijka ii suurta gashay waaye inaan doon kasoo raaco meel ay ciidamadii dowladda oo iraadinayay ay joogaan. waxaan isleeyahay taas marka aniga cabdirashiida qofka i qaban waayo ama i arki waayo cunug yar oo 20 jir ah ama 18 jir ah oo ummadda soomaaliyeed dhibaateynayo inuusan waxba ka qaban karinna waa mid u muuqanaysa ummadda soomaaliyeed aan raba inaan u muujiyo. marka intaadan usoo baxsanin magaalada Kismaayo 2 maalin ayaad magaalada ku sugneed oo dowladuna aysan ku arkin. hawlaal 3 maalin baan ku sugnaa muqdisho 3 maalin iyo waxaan ku sugnaa 2 habeen kadib aan doon ka soo raacay. ma jirtaa marka in ciidankii arrintan kuu fududeeyay ay kula soo baxsadeen oo maamulka Jubbaland arrintan uu gacan ka geystay? wax ciidan ah oo ciidan Soomaaliyeed ah oo dabcan dadkii hayay baad ka hadlaysaa oo kamid ah aniga la socday ama soo raacay ma jiraan. dabcan dadkii igala shaqeeyay oo Soomaaliyeed oo ku aan horay erigii ooga mid ahaa inaan u mahadceliyo cid walba ha ahaato ama dowladda Jubbaland ha ahaato ama dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin kamid ah ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan qof kasta oo ay kamid yihiin hataa qoladii doonta ka ahayd darawaliinta oo doonta lagu waday qof kasta oo shacab oo Soomaaliyeed oo barnaamijkaas igala qayb qaatay mustawa kastaba ha lahaadee oo u mahadcelinaya. marka qorshahaad ku soo baxsatay waxaa sidoo kale gacan ka geystay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka. dabcan ha cabdirashiid marka sideed ugu dhiiratay in intaasoo maalmood aad ku soo safarto badda iyadoon ognahay in magaalooyin ku teedsan xeebaha Soomaaliya ay al-shabaab ka taliyaan intii aad safarkaasi ku soo jirtay maxaad cunaysay? intaas badan ku dhex jirnay dabcan wixii aan cuni lahayn aniga nimankii ila socdayba waxay ahayd wax doontii noogu diyaarsanaa. nin baa dalkiisii asagoo nabad oo wax dhib oo ku qabo usii jirin ka tahriibo oo dalal kale u tahriibo oo bad intaas 10 kilomitir aado oo wuxuu la kulmahayo aanan ka warramin markii uu baddaas hadduu lacag ka badbaado. anigu nin aad xaqiiqadan wuxuu loola dhaqmay baan ahaa. muqdishona waxay ii jirtay 500 kilomitir badda inaan ka badbaado iyo meeshii aan marayana rabbi aniga oo 120 casho uurkooda ku jirto rabbi ii qoray oo wixii ugu dhacay inaan marnaba gafaynin qof muslim oo aqoon lahaan ahayo waan aaminsanaa in marka aan go'aankaas qaato waxa si ah oo riski ah oo ma arkaynin inaan badda maro. taasna waxay ahayd mid xorriyadiida iyo xaqiiqiyan dhibaatada markaas igu hayay aan islaawad uga bixi kartaa. markii aad timid cabdirashiid magaalada Kismaayo maamulkii aad ka tirsaneed ee Jubbaland ay ku soo dhaweeyay kadibna waxa lagu soo qaaday magaalada Nairobi. marka yaa ku soo qaaday maxaase lagu soo qaaday? walaalow aad baa mahadsantahay waa sax barnaamijkaas inta badan Kismaayo bay ahayd ujeedkii markoobaad inaan tago. Kismaayo markaan tago waxaan dareemahay shacab Soomaaliyeed oo mas'uul u ahaa iyo mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ah oo aan isku leeyahay ahayn oo lexdaalo fara badan ii lahaa inay iyo horeeyaan. waxay ii muuqanaysay inaysan caafimaadkiisa sax u ahayn in aan magaaladaas Kismaayo intaan tago aan saacado sii joogo oo shacab iyo mas'uulba maskaxdooda la jaamgaran doono. sababta markaan u joogay muqdisho 2 maalin iyo 3 maalin iyo habeenkaa waxay qayb ka ahayd in aan diyaarsado in aan Kismaayo markaan tagabo haddii rabbi nabad igu geeyo inaan kasii baxo oo sababtoo ah markii aan aniga ka baxay meeshii aan ku xirnaaba waan awooday doontii waa ii diyaarsaneed waxaan awooday inaan doontiida fuulo oo aan tago oo isla subaxiiba aan Kismaayo subaxan tagay habeenkeedii aan Kismaayo u hoyday waa awooday. sababta marka aan muqdisho u jeedo waxay ahayd ba inaan magaaladaas Kismaayo oo aan madaxda shacabka Soomaaliyeed u ahay iyo mas'uuliyiintii ila laga ahaa intaba ay joogaan aan ku sii sugnaan karin oo maskaxdayda jaamgaran fara badan ay ku dhacayso anana muddo 5 bilood ah dabcan kaligiis meel lagu hayay oo gaarsiin loo diiday telefoon oo dad inay soo booqdaan loo diiday oo TV inuu fiirsado loo diiday